دواذا برنامج كسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وحا ينسو جيدينيا أستاذ محمد علي جحا. الله يو نبر وحنا أنفعيا ونغو أنفع وحاد نبرتي علمينا نوزيادي وحقا نتوس نغونا أرزاغه إنان راعنو بعد الكنا نتوس ونغو أرزاغه إنان كفوغانو ونغييلا كوا هذا الكواناكسن دقيستا راعنا كيسا uguwanaagsana waxaana allah iyo ka baryeynaa inaad jannadaada nala gelisid addoommadaada wanaagsan. تناه غوريسا سيرة رسولك صلى الله عليه وسلم أيان وحان كسو قادن جونا دولكا عربتا يوليبا دادكيسا قوممكي عربتا حكومته يوليبا معمولدي عربتا بقركي يمن انتي ودحيسيا كنا يسدح بقول الله يسدح بقول الله باتنا تاريخ ميلادك كهرة انتي ودحيسي سنة كي لح بقول الله باتن الله يو بقول شن يتبنى تاريخ ميلادك كهرة انتي ودحيسي بقول شن يتبنى تاريخ ميلادك كهر الله يسدح بقول الصنو تاريخ ميلادك كدبة مددي ودحيسي سدح بقول الصنو تاريخ ميلادك كدب إلى وإسلام كي من كسوق عليا بقر كي حيرة يا بقرتو يدي شامة. سيرة رسولك صلى الله عليه وسلم وحقيقة أباهنا إن داها لغرغو مرولبا يوميل ولبا فرينتي ومركاسي وذينه أغارسي يددك هذا لهان يفعل أهانبا جهين يدقن أهانبا سيو مركاسي وبدلو isku dheelitirnaanta nolosha iyo waliba xumaantii markaasi jirtay iyo wanaag lagu bedelo dadkana inuu ka saaro mugdigii markaasi ay ku jireen una saaro iftiina cibaadadii baadilka ahaydna oo la caabudi jiray markaasi oo sanamyada ka mid ahaa iyo wixii la mid ahba uu ku bedelo cibaadada alle oo keliya ilaa uu wax ka bedelo taariikhda caalamka iyo nolosha insaankaba. haddaba ma dhammaystirmayso muuqaalkani aadka u wanaagsan oo aan idiin keenay ilaa la isbarbardhigo bii'adii hore oo fariintani la soo gaarsiiyey iyo bii'adii ka dambaysay. waxaana idiin soo bandhigaynaa iyada oo kooban qoomamkii carabta iyo horumarkooda islaamka ka hor, taariikhdii xukuumadihii markaasi jiray, nidaamkii qabaliga ahaa ee jiray, iyada oo markaasi barbar socdaan muuqaalka diineed, caadaad iyo xaaladihii siyaasadeed, ijtimaaci iyo dhaqaale ee markaasi jiray. kelimada caraba waxaa laga soo dhex saaray dhul saxara ah oo aan biyo iyo baad iyo dhirtoona lahayn, waxaana la isticmaalayay kelimadani qarniyo aad u badan dhulka jasiiratul carab gudihiisa ah. dhulka jasiiratul carab dhanka galbeed waxaa ka xiga badda cas iyo waliba jasiirada lamoodka Siinaa. dhanka bari waxaa ka xiga qaliijka cadmeed iyo qayb ka mid ah koonfurta dalka Ciraaq. dhanka koonfurna badda Hindiya iyo waliba dhanka waqooyina dhulka Shaam iyo qayb ka mid ah dhulka Ciraaq. inkastoo oo khilaaf ka taagan yahay dhulka carabta xuduudkeeda ayaa haddana waxaa lagu qiyaasaa masaaxadeeda inta u dhaxaysa 1 milyan ilaa iyo 1 milyan iyo 300 oo kun oo mayl oo isku wareeg ah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. jasiiradda carabta waxa ay leedahay ahmiyad aad u ballaaran halka ay ku taal juqraafi ahaanteeda. dhanka gudaha waxaa ku hareeraysan saxaro aad u kulul oo ciid ah oo dhan kasta ah. arrintan darteeda ayaa waxa ay noqotay mid ka hor istaagto cid kasta oo markaasi soo weerarta, umana suuragelin ajaaniibtii horarka ahaa ee ku socday dhul ballaarsiga si ay markaasi xoog ugu qabsadaan.
sidaa ayayna dadkeeda ku noqdeen kuwa aan la gumaysan muddo aad u dheera oo casriyadii qadiimiga ahaa iyada oo markaasi ku hareereysnaayeen laba dowladood oo aad u xoog badan umana suuragelin inay soo weeraraan oo ay qabsadaan haddii aan ahaan lahayn difaacan dabiiciga ah marka laga hadlayo arrimaha dibadda ee jasiiratul carab waxa ay ku taallaa bartamaha qaaradaha loo yaqaano qaaradihii qadiimka ahaa kuwaasoo kala ah aasiya afrika iyo weliba yurub waxayna iskaga darsamaan bad iyo beriba dhanka waqooyi galbeed waa albaabka laga soo galo qaaradda afrika dhanka waqooyi barina waa furaha qaaradda yurub dhanka barina waa albaabka xajamta oo ka mid ah aasiyada dhexe koonfurteeda iyo barigeeda fog sidaa darteed qaarad kasta waxay kala kulantaa dhulka jasiiratul carab dhanka badda doonyahooda iyo maraakiibtooda halkaasi ayay marayaan sidaa la ajligeeda juqraafi ahaan dhankeeda waqooyi waxay ahaan jirtay iyo koonfurteedaba mid aad muhiim ugu ah ummadaha kale waxayna ahayd xarun lagu kala wareegsado ganacsiga thaqaafada diimaha iyo weliba fanka صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم qoomamkii carabta dadka ku takhasusay cilmiga raadraaca waxa ay sheegeen in carabta loo qaybiyey 3 qaybood oo kala ah carabtii dabargo'day waa carabtii horey u jirtay oo qadiimka ahayd suuragalna way noqon weyday in macluumaad laga helo taariikhdooda waxaana ka mid ah caad thamuud dasam jadiis cimlaaq umayma jurham xatuur wabaa cabiil jaasim xadramood iyo kuwa kale carabtii asalka ahayd waa carabta ku abtirsata firka ninka la yiraahdo yashjub bin yacruubin qaxtaana waxaana lagu magacaabaa carabtii qaxtaaniyiinta carabtii carabowday waa carabta ku abtirsata filkii nebiyullaahi ismaaciil calayhi salaatu wassalaam waxaana lagu magacaabaa carabtii cadnaaniyiinta carabta asalka ah waa qaxtaaniyiin waxayna degan yihiin dhulka yeman halkaas ay ku farcameen oo ay ku bateen waxayna ka soo jeedaan saba bin yashjuub bin yacrub bin qaxtaan waxaana ka farcamay 2 qabiil oo si weyn loo yaqaano oo kala ah ximyar bin saba iyo weliba kahlaana bin saba intii ka soo hartay reer saba waa 11 jilib ama 14 waxaana lagu magacaabaa reer saba waxaana sidaa ahayna looguma yeero qabaa'ilka ximyar ugu caansan waxaa ka mid ah qudaaca qabiilkan ayaa kasii farcama bahraa beliy alqiy kalb cudra wabara sakaasiga qabiilkan sakaasiga ayaa isagana waxaa ka farcama banu zayda banu waa'il bin ximyar oo lagu naanayso زيد الجمهور قبيل كان زيد الجمهور يا إسقنا وحا كمد حمير الأصغر سبا الأصغر حضور ذو أسباح محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم قبيل ككهلان وحا أقوعان سنة همدان أهلام أشعر طي مدحج وحا كفر عمي عنس يوليبا نقع لخم وحا كفر عمي كندا وحانا كسيفر عمي بني معاوية سكون يسكاسيق حذامة عاملة خولانة معافر أنمار وحا كسيفر عمي خثعم بجيلنا وحا كسيفر عمي أحمس sidoo kale waxaa ka mid ah qabiiladani asad waxaa kasii farcamay aws iyo qasraja khusaaca caruurtii jifna boqoradii shaam ee caanka ahaa oo ka mid ahaa aal ghasaana bani kahlaana yeman way ka haajirtay waxayna u kala faafeen jasiiradda carabta nawaaxigeeda dadkan badankooda ayaa waxa ay soo haajireen kadib markii uu dhacay daadkii loo yaqiinay saylal caalamka hor kadib markii uu fashilmay ganacsigooda kadib markii ay cadaadis saartay dowladii Roomaanka kuwaasoo qabsadeen wadadii uu soo mari jiray ganacsigooda oo dhanka badda ahaa
waxayna qarribeen waddadii berriga ahayd kadibna waxa ay qabsadeen dhulalka shaam iyo masar waxaa kale oo la yidhaahdaa inay hijroodeen kadib markii uu dhacay daadkii saylal carama daadkaasoo baabi'iyey dhammaan wixii ay haysteen noloshoodii ayaa ciriiri ku noqotay arrintan ayaa si weyn uga faalootay suuratu saba laqad kaana lisaba'in fii maskanihim aayah جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور guryihii reer saba waxaa ku sugnayd calaamo labada beerana ka xigaya dhanka midiga iyo dhanka bidix wuxuuna alle ku yiri cuna risqiga allihiina kuna mahdiya waa balad wanaagsan iyo rabbi dembi dhaaf badane فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ويسجي سدينا waxaana ku diray daad darana waxaana ku bedelnay labadoodii beero kale oo geedo qaraar iyo qoryo iyo waliba sidri yar ah ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور sidaasi ayaana ku abaalmarinay gaalnimadoodii darteeda abaalmarin xunna waxaan ku abaalmarinaa kuwa gaalnimada badana وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين waxaana yeelay dhexdooda iyo magaalooyinkii barakaysnaa magaalooyin muuqda waxaana qadiray socodkooda waxaana dhahnay ku socda dhexdeeda habeen iyo maalin idinka oo aamin ah فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور waxayna dhaheen eebow noo kala fogee socodka wayna dulmiyeen naftooda waana kala goynay waxaana ka yeelay wax lagu sheekaysto suuratu saba aayada 15 ilaa 19 barnaamijka siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa alaaba halkan idinkala socodsiiya walaalkiin maxamed cali juxa haajiridan ayaa waxaa loo qaybiyaa 4 qaybood oo aan ku bilaabayno qabiilka azada hijradoodii ayaa waxa ay ahayd kadib markii odayga qabiilkani oo lagu magacaabo camraan bin camr dhulka yeman way ka tageen waxayna direen dad markaasi u keena warbixino waxay u socdaaleen dhanka waqooyi iyo bari kadibna sidaan ayay u kala degeen camraan bin camr wuxuu degay dalka Cumaan halkaasi ayay degeen isaga iyo caruurtiisa waxaana lagu magacaabaa azad Cumaan banu nasr iyagana waxay degeen tahaama waana kuwa loo yaqaano azad shanuu'a ثعلبة بن عمرو isagana waxa uu jiheystay dhanka Xijaaza waxaana uu ku nigaaday inta u dhaxaysa Thaclabiya iyo waliba Diiqaara kadib markii uu koray wiilkiisa waxaana uu u dhaqaaqay dhanka Madiina halkaas ayuu ku sii nigaaday uuna digay wiilasha reer Thaclaba waxa kamid ahaa Aws Qasraj iyo reer Bani Xaarith bin Camr oo Qusaaca waxay u guureen isaga iyo caruurtiisa rubuucul Xijaaz ilaa misana ay ka degeen Bimiru Thahraana xaramka ayay agdegeen oo Makka Jafna bin Camr waxa uu u dhaqaaqay dhanka iyo Shaama halkaasi ayna degeen isaga iyo caruurtiisa waana aabaha boqortooyadii Qasaasina waxayna markii hore ay degeen biyaha Xijaaz oo loo yaqiinay Ghassan ka hor inta aysan u guurin dhanka Shaama koox yar oo kamid ahayd dadka haajiray ayaa waxay ku soo biireen qabiilooyinkii markaasi u haajiray Shaam iyo Xijaaz sida Kacab bin Camr
xaarith bin camr iyo weliba cawf bin camr laqam iyo judaam iyagana waxay u guureen bariga iyo waqooyiga dadka reer laqam ayaa waxaa ka mid ahaa nasr bin rabiica waa aabihii boqortooyadii manaadira ee xiira صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم banuutii kadib markii ay socdaaleen reer asad ayaa iyagana waxay u jihaysteen dhanka iyo waqooyi ilaa ay ka degeen jabalada laba jabal oo la kala yiraahdo aja iyo weliba silmi kadibna labadaasi buur ayaa waxaa loo bixiyey jabalati kinda qabiilkani ayaa waxa uu degay baxreyn kadibna waxay ku qasbanaadeen inay ka soo tagaan oo ay yimaadaan xadramood halkaasina waxay ka heleen waxaysan ka helin baxreyn kadib waxay degeen najdan halkaasina waxay ka noqdeen dawlad weyn oo sha'ni weyn xambaarsan hase yeeshee si degdeg ah ayaa raadkooda loo waayay waxaa jira qabiil ximyar ka mid ah oo khilaaf ka taagan yahay waxaana loo nisbeeyaa qudaaca yemen ayay ka soo haajirtay waxayna degtay baadiyaha samaara oo ciraaq ah qaar iyaga ka mid ahna waxay degeen shaam iyo waqooyiga xijaaz carabtii carabowday carabtan ayaa asalkooda ugu weyn waxa uu ka soo jeedaa nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam oo markiisii hore ka yimi ciraaq gaar ahaan magaalada lagu magacaabo ar dhanka galbeed ee waqooyiga furaad una dhow kuufa magaaladan ayaa waxaa laga helay tafaasiil waasaca oo ku saabsan qoyska nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam diintiisa iyo weliba xaaladda bulshe ee dhulkaasi sida la og yahay nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam ciraaq ayuu ka soo hijrooday waxa uuna yimi meel lagu magacaabo xaaraan ama xaraan oo falastiin ka mid ah halkaasi ayuuna saldhigga dacwadda uu ku faafiyo ka samaystay dhulkaasi iyo weliba dhulalka deriska la ah ayuu ku soo wareegi jiray محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم haddaba maalin maalmaha ka mid ah isaga oo samaynaya wareegani isaga oo markaasi la socotay xaaskiisii saara ayaa waxaa u yimi nin xaakim ah oo aad u awood badan xaaskiisana waxay ahayd midda ugu qurxoon uguna wanaagsan dadka oo dhan markaasi xaakimkan ayaa waxa uu isku dayay inuu damco oo xumaan la maago xaaska nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam hase yeeshee iyadana ilaah ayay bariday xumaantii uu la maaganaa isaga ayay dib ugu laabatay ninkani daalimka ahaa ayaa waxa uu ogaaday in xaaska nebiyullaahi ibraahim ay tahay qof wanaagsan oo dhowrsoon ilaahay agtiisana martaba sare kaga jirta wuxuuna markaasi jaariyad uga dhigay haajar si ay markaasi ugu adeegto isaga oo markaasi ictiraafaya fadligeeda ama uu ka baqayo cadaabta alle saarana waxay u hibaysay nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam sida la og yahayna xaakimkaasi daalimka ahaa inuu ka mid ahaa faraacinadii markaasi masar xukumaysay haajarna ay ahayd addoon isaga lahaa hase yeeshee qoraaga weyn qaadigana ah maxamed sulaymaan mansuur fawri ilaahay ha u naxariistee waxa uu sheegay in haajar ay ahayd qof xor ah ayna ahayd gabar uu markaasi dhalay fircoonkaasi nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku soo laabtay saldhigiisii falastiin kadibna ilaahay haajar waxa uu ka siiyey nebi ismaaciil calayhi salaam محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم midaan oo keentay inay ka hinaasto ama ka masayrto saara kadibna nebi ibraahim waxa uu ka soo haajiray falastiin waxa uuna yimi isaga iyo haajara iyo cunugiisii naasnuuga ahaa ee nebi ismaaciil calayhi salaam dhulka xijaaz waxa uuna dejiyey dhul aan dhir lahayn oo guriga ilaahay agtiisa ah halkaasi oo ahayd meel saxaro oo qax ah waxaana kusoo rogman jiray daadadka oo wax walba qaadi jiray
wuxuuna markaasi dejiyey doox markaasi ka sareeyay ceelka biyaha zamzamka markaasina magaalada maka cid kuma noolayn biyana ma jirin nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam waxa uu uga tegay waxoogaa timir iyo biyo ah waxa uuna dib ugu laabtay falastiin waqti dheerna kama soo wareeganin waxaana ka ilaatay sahaydii iyo biyihii markaasi ay isticmaalayeen halkaasina waxaa ka soo burqaday ceelkii biyihii zamzamka ahaa ilaahay fadligiisa waxayna ka dhigteen wixii ay quudan lahaayeen qisada ceelkaasina si weyn ayaa loo yaqaanaa wayna noo imaan doontaa halkaasi ayaa waxaa yimi qabiilo ka mid ah reer Yemen oo markaasi ka mid ahaa qabiilka Jurham halkaasi ayay soo degeen kadib markii ay ka idan dalbadeen Haajar oo ah nabiyullaahi Ismaaciil calayhi salaam hooyadiisa waxaana la yiraahdaa biyahan zamzamka inuu ahaa daawo markaasi laga isticmaalayay hareeraha magaalada Maka oo dhan محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam waxa uu imaan jiray Maka si uu markaasi u soo kormeero dadkii uu markaasi ka tegay si dhab ahna looma oga tirada dhabta ee safaradan balse ilaha qaar ayaa waxa ay sheegayaan 4 jeer kow alle quraankiisa ayaa waxa uu ku sheegay in nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam ku riyooday isaga oo markaasi baraynaya wiilkiisa ismaaciil calayhi salaatu wasalaam markii uu gaaray agtiisa socod wuxuu ku yiri nabi ibraahim wiilkiisa wiilkaygu waxaan hurdada ku arkay aniga oo ku gowracaya ee sideed u aragtaa wuxuuna yiri aabbow samee waxa lagu amray waxaad heli haddii alle idmo inaan ka mid noqdo kuwa samra markay hoggaansameen oo wajiga u legday ayaanu u dhawaaqnay ibraahimow dhab ahaantii aad baad ugu rumaysay riyadii sidaa ayaana ku abaalmarinaa samafalayaasha taasina waa imtixaan muuqda waxaana ku furanay wan weyn aayada 102 ilaa 107 ee suuratu Saafaad barnaamijkan siirada rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxaa idin la socodsiinaya al-ustaad Maxamed cali Juha labo markii uu nabi ismaaciil calayhi salaam uu koray oo uu ka bartay luqadda carabiga qabiilka reer Jurhamna aad ayay ula dhaceen dabadeedna gabar iyaga ka mid ah ayay u guuriyeen hooyadiina way geeriyootay nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam waxa uu bilaabay inuu soo booqdo reerkii uu markaasi ka tegay waxa uuna yimi kadib markii nabi ismaaciil loo guuriyay balse isma haleelin isaga iyo waliba wiilkiisa ismaaciil calayhi salaam nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam waxa uu xaal wareystay xaaskii inankiisa ismaaciil waxayna sheegtay in xaaladooda ay aad u adag tahay noloshoodana ay ciriiri ku jirto dabadeedna waxa uu u sheegay in marka uu yimaado ismaaciil uu bedelo handaraabka gurigiisa nabi ismaaciil
ismaaciil markii intaa loo sheegay wuu fahmay hadalka aabihiisa gabadhii ayuu furay mid kalena wuu guursaday waana inantii uu dhalay mudaad bin camr oo markaasi ahaa madaxa qabiilka jurham sida ay dad badani qabaan saddex nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam mar saddexaad ayuu u yimi wiilkiisii ismaaciil calayhi salaatu wasalaam ismana haleelin waxa uuna la kulmay xaaskiisa cusub xaaladoodii ayuu weydiiyey waxayna ammaantay nolosha ay ku nool yihiin alla dhankiisana wanaag ayay ka sheegatay محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم dabadeedna nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam waxa uu u dardaarmay xaaskii nebi ismaaciil calayhi salaatu wasalaam in handaraabka albaabkiisa uu adkeeyo dabadeedna nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam mar afraad ayuu soo laabtay nebi ismaaciil calayhi salaam ayuu la kulmay isaga oo markaasi ku sugnaa meel tog ah oo u dhoweyda ceelka zamzam markii uu arkay wuu istaagay wuuna ku soo booday isaga oo markaasi samaynayay sida ay sameeyaan laba isdhashay oo hilow isu qabta muddana is arkin nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam iyo nebi ismaaciil calayhi salaatu wasalaam muddo dheer isma arkin markana waxa ay u istaageen dhisada kacbada qawaacidkeeda ayay dheereeyeen kadibna sida uu alle amray dadkii ayuu wuxuu amray inay soo xajiyaan nebi ismaaciil calayhi salaam ilaahay waxa uu siiyey 12 wiil oo la kala yiraahdo naabit ama nabayood qaydar adbaa'iil mibshaam mishmaac duumaa miishaa xadad tiimaa yadhuur nafiis iyo qaydumaana 12 wiil way bateen waxayna noqdeen qabiil dhammaantoodba muddo dheer waxa ay wada deganaayeen magaalada maka noloshoodana waxa ay ku tiirsaneyd ganacsigii markaasi ay ka sameyn jireen dhanka yemen iyo waliba dhulka shaam iyo masar kadibna waxay ku kala fiirsameen dhulka jasiiratul carab iyo dibadeeda محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم xadaarada reer ambaad oo ilmihii nabaad ah oo markaasi deganaayeen waqooyiga xijaaz way horumartay waxayna noqdeen dawlad aad u xoog badan caasimadeedana waxa ay ahayd albitra waa magaalo qadiim ah oo macruuf ah kuna taala koonfurta urdun dawladana in muddo ah ayay jirtay wax soo haweystana waa la waayay ilaa ay ka timi dawladii roomaanka oo ay ka takhallustay markii dambe koox cilmi baarayaal ah ayaa waxa ay sheegeen in boqortooyadii al-Ghassan sida ansaartii Aws iyo Khasraj inay ahaayeen dadka ka soo farcamay Naabit bin Ismaaciil halkaasi oo baaqi ku sii ahaayeen imaam Bukhari ilaahay ha u naxariiste waxa ku yaala saxiixiisa qoraal loogu magac daray nisbatu Yemen ila Ismaaciil waxaana lagu muujiyay qoraalkani qaar ka mid ah axaadiista rasuulka sallallahu alayhi wasallam xaafid ibn xajarna waxa uu ku sheegay sharaxiisa in qaxfaana uu ka mid yahay reerka al-Naabit bin Ismaaciil alayhi salaam hase ahaatee Qaydar bin Ismaaciil caruurtiisii waxay iska joogeen oo ay ku nagaadeen magaalada Makka halkaas ay ku bateen oo markaasi joogeen Cadnaan iyo wiilkiisa Muciid ilaaliyayna nasabka carabta cadnaaniyiinta lagu naanaysay carabtii cadnaaniyiinta nasab ahaan sida ay ku abtirsadaan cadnaan waa awowgii 11aad ee silsilada abtirsiimada nabiyullaahi Muhammad calayhi salaatu wasalaam waxaa la wariyay in marka loo abtirinayo nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ay dhaafiyaan cadnaan inay been abuur dadkaasi sameynayaan hase yeeshee qaar ka mid ah culimada waxa ay ku tageen in ay bannaan tahay abtirsiimada nabiga calayhi salaatu wasalaam la dhaafiyo cadnaan halka qaar kalena ay ka soo horjeesteen caalimka caanka ah ee si weyn u baaray taariikhda Muhammad Suleymaan al-Mansuur Fawri ilaahay ha u naxariistee waxa uu taageeray hadalkii uu sheegay ibn Sa'd Tabari Mas'uudi iyo waliba kuwa kaleba ay sheegeen in abtirsiimada u dhaxaysa Cadnaan iyo Nabi Ibraahim calayhi salaam
ay tahay 40 oday midaasi oo si weyn loo xaqiijiyay wayna noo imaan doontaa insha Allah. محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم reer Mucid waa ay kala tageen. Nazaar waxa uu ka mid ahaa caruurtii Mucid, waxaana la yiraahdaa Mucid inuu dhalay oo kaliya Nazaar. Nazaarna waxa uu dhalay 4 wiil oo markii dambe noqdeen 4 qabiil oo waaweyn: Iyaad, Anmar, Rabiic iyo Mudar. labadan qabiil ugu dambeysay aad ayay u bateen. Rabiica waxa uu dhalay Dubayca, Asadna waxa uu sii dhalay Canzah iyo Jadiila. jadiilana waxaa ka sii farcamay qabiilo aad u badan caan ah sida Cabdulqays, Namira iyo waliba Banu Waa'il. Banu Waa'il ayaa ka mid ahaa Bakar iyo waliba Taghlib. reer Bakarna waxaa ka mid ahaa Banu Qays, Banu Shaybaan, Banu Xaniifa iyo kuwa kale. Canzah waxaa ka mid ahaa Aal Sacuud, kuwaas oo ah waqtigan xaadirka ah boqortooyada Sacuudi Arabiya. qabiilka Mudar waa ay sii bateen. 2 qaybood oo waaweyn ayay u qaybsameen: Qays Caylaan bin Mudar. Qays Caylaan waxaa ka sii farcamay Banu Sulaym, Banu Hawazin, Banu Faqiif, Banu Sacsaca, Banu Qadafaan, Cabs, Dubyaan, Ashjac iyo waliba Acsur. إلياس بن مطر وحا كمد تميم بن مرة، هديل بن مدركة، بنو أسد بن خزيمة، كنانة بن خزيمة. كنانة وحا كسي فرعمي قبيلك قريش أو مركاسي دور نوع نقضية، وحانا وقوعا سنة جم، سهم، عدي، مغزوم، تيم، زهرة. جلبك قسية بن كلابة، وانا عبد الدار بن قسية، أسد بن عبد العزة بن قسي، يولبه عبد المناف بن قسية. reer Cabdulmanaaf waxa ay ahaayeen kuwa u qaybsama 4: Cabdulshams, Nawfal, Muttalib, Haashim. reer Haashimna waa reerkii Ilaahay ka doortay Nabiyullaahi Muhammad bin Cabdullah bin Cabdulmuttalib bin Haashim alayhi salaatu wassalaam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. barnaamijka siirada nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxaa alaaba halkan idinkala socodsiiya walaalkiin Maxamed Cali Juxa. rasuulka alayhi salaatu wassalaam ayaa waxa uu yiri Ilaahay wiilasha Ibraahim waxa uu ka doortay Ismaaciil, wiilasha Ismaaciilna waxa uu ka doortay Banu Kinaana, Banu Kinaanana waxa uu ka doortay Quraysh, Qurayshna wuxuu ka doortay Haashim, Haashimna aniga ayuu iga doortay. markii ay bateen Cadnaan caruurtiisa meel kala duwan ayay aadeen oo dhulka Carabta kamid ah. reer Cabdulqays waa ay haajireen, gaar ahaan jilibka Bakar bin Waa'il iyo jilibka Tamiim, waxayna degeen Bahrayn. reer Banu Xaniifa bin Bakar bin Waa'il way baxeen, iyagana waxay afka saareen Yamaama, xujir ayna ku nigaadeen. dhammaantood waxay isku fidiyeen dhulka Yamaana ilaa halka loo yaqaano Sawaadul Ciraaq. reer Taghlub iyagana waxa ay degeen Jasiiratul Furaatiya, waxaana halkaasi deganaa jilibka Bakar. Banu Tamiimna waxay degeen baadiyaha Basra. Banu Sulaymna waxa ay degeen meel u dhow magaalada Madiina oo kamid ah Waadi Quraa ilaa Khaybar, ilaa bariga magaalada Madiina, ilaa Hadal Jabalayn, ilaa ma yantahi ilaa Xurra. Banu Asad waxa ay degeen bariga Tayma, galbeedka Kuufa. iyaga iyo Tayma waxa u dhaxeeyay guryaha qabiilka Buxtirin oo reer Tiya ah. iyaga iyo Kuufa waxa u dhaxaysa 5 habeen socod. reer Dabyaan waxay degeen oo u dhow Tayma ilaa Xawaarin. Tahama oo kamid ah jilibka Kinaana waxay ku nigaatay magaalada Makka iyo agagaarkeeda. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. xukuumadihii iyo maamuladii Carabta. xukuumadihii iyo maamuladii ka jiray dhulka Jasiiratul Carab waxaa loo qaybiyaa 2 qaybood. markii uu islaamku soo muuqanayay nidaam boqortooyo iyo waliba nidaam qabaa'il. boqortooyada waxa ay ahaayeen xaqiiqda marka laga hadlayo kuwa aan madax banaanayn.
nidaamka qabaa'ilka waxa uu ahaa nidaam aada loola dhacsanaa ma aysan ahayn sida midka boqortooyada waxayna lahaayeen madax bannaani dhammaystiran waxayna xiriir hoose ay lahaayeen boqoradii maqaarsaarka ahaa boqortooyadii maqaarsaarka ahaa waxaa ka mid ahaa boqoradii yemen boqoradii shaam oo alaqasaan ahaa boqoradii xiira waxaana isku dayi doonaa inaan soo koobno boqoradii iyo weliba madaxdii soo martay jasiiratul carab aan ku bilaabo boqortooyadii yemen shacabkii ugu qadiimsanaa ee lagu yaqiinay yemen waxaa ka mid ahaa carabtii asalka ahayd qoomkii saba ka hadalkoodana aad ayaa loogu dheeraaday xusuustoodiina waxaa laga helay godad markaasi lagu magacaabi jiray awra 25 qarni ka hor taariikhda miilaadiga markaasi waxaa bilowday horumarkii ay gaareen iyo weliba xukunkoodii meesha uu gaaray iyo dhul ballaarsigii ay markaasi sameynayeen iyada oo aan ka ogaan doono sidan isoo socota intii u dhaxaysay 620 ilaa iyo 1300 taariikhda miilaadiga ka hor muddadana intii u dhaxaysay ayaa dawladani waxaa loo yaqiinay almaciiniya dawladani ayaa waxa ay ka soo muuqatay halka lagu magacaabo jawfa haddii aan sii fasiro inta u dhaxaysa najraan iyo xadramowd kadibna way sii kortay wayna sii ballaaratay waxayna sii qabsatay dhul aad u weyn ilaa ay ka gaartay xukunkeeda siyaasadeed meel aad u sareysa waxayna gaartay ilaa waqooyiga xijaaz waxaana la yiraahdaa in isticmaalkeeda uu gaaray meel ka baxsan dhulka carabta dhaqaalaha ugu badanna dawladani waxa uu ka soo geli jiray dhanka ganacsiga kadibna waxay dhiseen biyo mareenka loo yaqaano Sadamarib oo meel weyn kaga jira taariikhda dalka Yemen midaasi oo u suura gelisay inay dhulka ka helaan kheyraad aad u tiro badan boqortooyadooda ayaa waxaa lagu naanaysi jiray mukarrib saba caasimadna waxay ahayd Sirwaax magaaladaasi oo ku taala meel 50 kiiloomitir kaga beegan waqooyi galbeed ee magaalada Maarib bariga Sancana waxay kaga beegan tahay 142 kiiloomitir waxaana loo yaqaanaa magaca Khurayba tirada boqoradaasna waxaa lagu qiyaasaa 22 ilaa iyo 26 boqor محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم intii u dhaxaysay sanadkii 115 ilaa iyo 620 taariikhda miilaadiga ka hor dawladooda ayaa waxaa loo yaqaanay waqtigaasi dawladda saba wayna iska daayeen naanaystii lagu yaqiinay oo mukarrib ahayd waxaana lagu yaqaanay boqoradii saba caasimadna waxay ka dhigteen Maarib bedelkii Sirwaax magaalada Maarib ayaa caasimada Sanca waxay u jirtaa 192 kiiloomitir intii u dhaxaysay 115 taariikhda miilaadiga ka hor ilaa iyo 300 oo sano miilaadiga kadib muddadana ayaa dawladani waxaa loo yaqiinay dawladii ximyar ee koowaad sababta oo ah qabiilka reer ximyar ayaa waxay gacanta ku dhigtay dagaalna kula wareegtay boqortooyadii saba boqoradoodana waxaa loo yaqiinay boqoradii saba ee Diraydana waxayna caasimad ka dhigteen magaalada Raydana halkii ay markii hore ahayd magaalada Maarib waxayna u dhowdahay buuraha Maduur oo kaabiga ku haysa magaalada Yariima muddo ayay aad u soo daciifaysay awoodooda waxaana fashiliyay ganacsigooda markii si weyn ay isku ballaariyeen mandiqada oo ay gaareen waqooyiga Xijaaz kadib waxaa ka xoog badiyay dawladii Roomaanka oo dhanka badda culays ka soo saartay kadib markii ay xukunkoodii ay ku ballaariyeen Masar Suuriya iyo waqooyiga Xijaaz haddana waxaa soo fulay culays ah loolan ka dhaxeeyay qabaa'ilka reer ximyar dhexdooda ah saddexdan arrimood ayay sababtay inay kala tagaan aala qaxtaan ayna u hijroodaan markii dambe wadamo kala duwan محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم muddadii u dhaxaysay muddadii 300 oo sano taariikhda miilaadiga kadib ilaa iyo islaamka Yemen ka soo galay
dowladan ayaa muddo waxaa loo yaqiinay dowladii ximyartii labaad boqoradeedana waxaa loo yaqiinay boqoradii saba ee Dhiiraydaan Xadramood iyo Yamaneed dowladan ayaa waxa ay la kulantay dhacdooyin iyo waliba dhibaatooyin kala duwan waxaana batay inqilaabyadii iyo dagaaladii sokeeye midda sababteeda ayaa waxa u soo hanqal taagay oo weerar ku soo qaaday ajaanib markaasi ka dhinac dagaalameysay ciidamo xabashi ah zamankan ayaa ciidankii Roomaanka waxay soo galeen Yemen waxayna qabsadeen magaalada Cadan iyaga oo markaasi ay isgarabsanayaan ciidamo xabashi ah oo markii ugu horeysay ay soo galaan Cadan waxayna ahayd sanadkii 34 ee taariikhda miilaadiga waxayna ka faa'iideysteen dhanka xukunka ah oo markaasi u dhaxeeyay labadii qabiil ee waaweynaa ee Ximyar iyo Hamdaan صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم isticmaarkani ayaa waxa uu socday ilaa iyo laga soo gaaro sanadkii 387 ee taariikhda miilaadiga kadib Yemen xoriyadeedii ayay dib u heshay hase yeeshee waxaa bilowday in biyo-xireenkiisa Dumarib uu dumo ilaa uu ka yimi daadkii loo yaqiinay Saylal Carim oo Quraanka lagu sheegay kaasoo dhacay sanadkii 450 ama 451 taariikhda miilaadiga daadkan ayaa waxa uu keenay burbur dhan kasta ah oo si weyn u saameeyay gobolka Camraan shacabkiina uu kala furfuray sanadkii 523 ee taariikhda miilaadiga nin la oran jiray Dunawas oo Yahuudi ahaa ayaa weerar waxa uu ku soo qaaday masiixiyiintii deganeyd Najraan wuxuuna isku dayay inuu halkaasi ka tirtiro diinta masiixiga oo markaasi haysteen dadkii meesha deganaa markii ay diideen god weyn ayuu u qoday dab ayuu ku shiday dadkii masiixiyiinta ahaa ayuu ku guray dhacdadan ayaa lagu tilmaamay suuratul buruuj dhacdadan ayaa waxa ay sababtay inuu halkaasi ka bilowdo dhaqdhaqaaq markaasi ay hogaaminayeen dad nasraaniyiin si ay u furtaan dhulkaasi iyo sidii ay isaga qaadi lahaayeen isticmaalka Yahuuda dhaqdhaqaaqani ayaa waxaa hogaaminayay Abu Dharra ar-Rumani oo markaasi asal ahaan ka soo jeeday dhulka Carabta wuxuuna dagaalka ku soo daray ciidanka xabashida waxa uu diyaariyay maraakiib dagaal wuxuuna xeebta ka soo dejiyay 70000 oo askar oo mar kale ay Yemen qabsadeen ciidankii xabashida waxaana ciidanka xabashida markaasi hogaaminayay nin la oran jiray Ariyaad sanadkii 525 ee taariikhda miilaadiga محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم Ariyaad in badan ayuu Yemen xukumayay isaga oo mas'uul uga ahaa boqorkii xabashida ilaa laga dilay markii dambe waxaana dilay Abraha bin Sabah al-Ashraf waxa uuna kamid ahaa hogaamiyaashii ciidanka xabashida sanadkii 549 taariikhda miilaadiga wuxuuna iskiisu isku caleema saaray xaakimka Yemen kadib markii uu raali geliyay boqorkii xabashida ee markaasi jiray Abraha waa ninkii isku dayay inuu dumiyo Kacbada isaga iyo ciidankiisana waxa loo yaqaanaa asxaabul fiil ilaah ayaana haligay kadib markii uu ku soo laabtay magaalada Sanca kadibna waxa dhaxlay inankiisii Yaksuuma kadibna wiilkiisii kale ee Masruuq waxaana la yiraahdaa inay ka sharbadnaayeen aabahood Abraha aad ayna reer Yemen u dhibaateeyeen oo u cadaabeen una duleysteen balse dadka reer Yemen markii ay arkeen inuu Alle haligay Abraha iyo ciidankiisii waxay u arkeen in midani ay tahay fursad ay kula dagaalami karaan xabashida maadaama uu Alle hoojiyay waxayna bilaabeen inay la dagaalamaan ciidanka xabashida ilaa ay ka ciiriyeen waxayna xoriyadoodii soo ceshadeen sanadkii 575 ee taariikhda miilaadiga محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم
barnaamijkan siirada rasuulka sallallahu calayhi wasalam waxaa idinla socodsiinaya al-ustaad maxamed cali juxa waxaana hogaaminayay mucid yakrub seef bin diyazin alximyari waxayna ka dhigteen boqor markaasi iyaga xukuma mucid yakrub xabashidii ay ka adkaadeen waxa uu ka dhigtay inuu adoonsado oo rukaabkiisana ay qaadaan boqorkanna ayaa maalin maalmaha ka mid ah la dilay markii la dilay kadib waxaa halkaasi kusoo afjarmay xukunkii diyazin kadibna yemen waxay noqotay dhul raacsan dowladii faris kadibna waxay ka dhigtay meel ka mid ah maamul goboleedyada ay markaasi maamuli jirtay dowladii faris xaakimkii ugu horeeyay ee loo dhiibo yemen waxa uu ahaa hazaar kadibna marzubaan bin wahraz kadibna wiilkiisa tinjana dabadeedna waa la dilay ugu dambeyntiina baadaan oo ahaa kii ugu dambeeyay xaakimka maamul goboleedka taabacsan faris kadib yemen waxaa soo galay islaamka oo soo afjaray xukunkii farisiyiinta ee yemen sanadkii 627 ee taariikhda miilaadiga محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم boqorkii xiira faris waxa ay xukumi jirtay dhulka ciraaq iyo dhulalka deriska la ah oo markaasi isu keenay quruush al-kabiira sanadkii 557 ilaa iyo 529 ee taariikhda miilaadiga ka hor xukunkiisa cidna ma soo hawaysan jirin ilaa uu ka dagaalamay iskandar al-maqdumi boqorkii waa la jibiyay qodaxdoodiina way jabtay ilaa uu dhulkii uu ka qaybsamay markii dambana waxaa gacanta ku dhigay boqoro markaasi ka soo jeeday firqooyin kala tagsan ama tawaa'if boqoradan ayaa sidan waxay ku jireen ilaa laga soo gaaro sanadkii 23aad ee taariikhda miilaadiga muddadan intii lagu jiray ayaa waxaa dhacday in ay haajiraan qaxtaaniyiintii meesha deganayd waxayna ku habsadeen qayb ka mid ah baadiyaha ciraaq kadibna dadkii soo haajiray waxaa soo dabagalay cadnaaniyiinta isku meel ayay soo buuxdhaafiyeen waxayna wada degeen jasiiratul furaatiya boqorkii ugu horeeyay ee dadkaasi soo haajiray waxa uu ahaa maalik bin fahmi al-taniikhi oo ka tirsanaa qabaa'ilka aal qaxtaana wuxuu degay ambaara kadibna waxaa dhaxlay walaalkiisii camr bin fahm kadibna jadiin bin maalik bin fahm waxaana lagu naanaysi jiray abrash والضاح يوليبا يعقوبي محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم waxaa mar kale soo laabtay awoodii farisa xilligii uu haystay aradshiir bin baabika waa ninkii aasaasay dowladii sasaaniya sanadkii 226 taariikhda miilaadiga wuxuuna isbahaysi la samaystay dowladii faris waxayna qabsadeen dhammaan dhulka carabta oo nidaamka boqortooyada ka jiray midana waxa ay sababtay in qudaaca ay shaam isaga tagto midaas oo ay cambaareeyeen reer xiira iyo waliba reer ambaar waqtigii uu xukunka hayay ninkani aradshiir ayaa wilaayadii uu xukumayay judayma bin wadaax waxaa mas-uul looga dhigay xiira iyo baadiyaha ku hareeraysan ciraaq jasiiradana rabiica iyo mudar maxaa yeelay aradshiir waxa uu u arkayay inuusan si toos ah u maamuli karaynin hase yeeshee waxa uu ka ilaalinayay inay dib u soo aasaastaan boqortooyadooda si ay u gilgilaan boqortooyadiisa waxa uuna ka baqayay in carabta ay gacan saar la yeeshaan boqorada roomanka sidaa darteedna boqorkii xiira waxaa la joogay ciidan reer faris ah si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa boqorka xiira kadibna boqorkii xiira waxa uu geeriyooday sanadkii 268 taariikhda miilaadiga kadib markii uu geeriyooday boqorkii xiira ee judayma boqornimadii xiira iyo ambaar waxaa la wareegay camr ibn cadiy bin nasr al-lakhami sanadkii 268 ilaa iyo 288 taariikhda miilaadiga waxa uu ahaa boqorkii ugu horeeyay ee lakhamiyiinta waana boqorkii ugu horeeyay ee maqar ka dhigta xiira
waxa uuna xukumayay waqtigii Kisra Sabuur bin Aradshiir kadibna lakhamiyiinta hawshoodii ayay sidaa ku sii wateen ilaa markii dambe ay Farisiyiintii gacanta u geliyeen xukunka Qubaad bin Fayruz sanadkii 448 ilaa 531 taariikhda miilaadiga. محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم waqtigani uu ninkani xukumayay waxaa soo baxday madhab la yiraahdo ibaaxiya oo uu la yimi nin la yiraahdo Musdaga waxaana la amray in la qaato ninka la yiraahdo Qubaad wuu qaatay iyo dadkii uu markaasi mas'uulka ka ahaa kadibna waxa uu gaarsiiyay Qubaad boqorkii Xiira markaas waxa boqorkii Xiira ahaa Mundir bin Ma as-Samaa sanadkii 512 ilaa 578 taariikhda miilaadiga. منذر markii loogu yeeray madhabtani aadka u xun wuu diiday inuu qaato kadibna waa la casilay booskiisina waxaa loo magacaabay Harith bin Amr bin Hajar al-Kinadi kadib markii loogu yeeray madhabtani ibaaxiyada oo uu la yimi Musdig isla markaasna uu si toos ah u qaatay. Musdig waa la dilay isaga iyo in badan oo kamid ah dadkii raacay madhabtiisa. منذرنا وحاو دب ugu laabtay xukunkiisa. Harith bin Amr ayuu dalbaday in loo keeno balse waxa uu u baxsaday Daarul Kalb halkaasi ayuu ku sugnaa ilaa uu ka geeriyooday. boqortooyadii Mundir bin Ma as-Samaa kadib way sii socotay ilaa markii dambe boqor noqday wiilkiisa Nu'man bin Mundir bin Ma as-Samaa sanadkii 583 ilaa 605 taariikhda miilaadiga. barnaamijka siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa aalaba halkan idin kala socodsiiya walaalkiin Maxamed Cali Juxa. Nu'man waxa uu ka caraysiiyay boqorkii Kisra taasina waxay sababteedii ahayd in uu soo maleego Zayd bin Adiy al-Ubadi ninkani ayaa waxa loo diray Nu'man si uu u gaarsiiyo dalab uga yimi Kisra. نعمان وصوبحي وحاو كسو ديجي هاني بن مسعود آل شيبان وحاونه كسو ديجي مال كيسا يو اهل كيسا كدبنا وحاو سو آذيه دنكا يو كسرا مركي وهالكاسي ويمدنا حبسيها ايالا ديجي إلا وكجيريو دي محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم كدب وحا حيرة مدح لوغا ديجي إياس بن قبيسة الطائي إياس مركيبا وحا أمر لغسييه إنو صادرو هاني بن مسعود سيئو مركاسي ugu wareejiyo boqorka Kisra wixii uu hayay haanina si kulul ayuu u diiday boqorka Kisra dagaal ayuu amray wax badanna kama soo wareegana kadib markii ay yimaadeen ciidankii Kisra dhulkii markaasi uu maamulayay Iyaas halkaasina waxa ka dhacay dagaalkii ugu weynaa uguna adkaa meel la yiraahdo Biqaar waxaana guusha ku raacday Banu Shaybaan Farisiyiintii jabkii ugu weynaa uguna xumaa ayay la kulmeena midana waxay noqotay guushii ugu horeysay oo carab ka guuleysato cajama arintanna ayaa waxay dhacday dhalashadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam kadiba محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم تاريخ يهنده ويسكو قلافين سلو حددو وقت غاني دقال كاني ودعايا قار ايا وحا اي دهينا دلشدي النبي صلى الله عليه وسلم كدب وحيرا قار كلنا وحا اي رهدين انو النبي صلى الله عليه وسلم مركي او دشي 8 بلود كدب مركي اي جرتي دولدي ومدحدا او اها إياس oo markaasi xukumayay Xiira waxa kale oo la yiraahdaa nabinimada ka hor waxyar midda ayaana ugu soo dhow qaarna waxay yiraahdaan nabinimada kadib waxyar qaar kalena waxay yiraahdaan hijrada kadib halka qaar kalena ay yiraahdaan dagaalkii Badr kadib iyo hadalo kale Kisra wuxuu madax uga dhigay Xiira Iyaas kadib xaakim Farisi ah oo lagu magacaabo أزادبة
bin mahabiyaan bin mahrabandaad wuxuuna halkaasi xukumayay 18 sano laga soo bilaabo sanadkii 614 ilaa 631 taariikhda miilaadiga kadibna boqortooyada waxay u soo laabatay al-Lakham sanadkii 632 taariikhda miilaadiga waxaana madax ka noqday Mundir bin Nu'man oo lagu naanaysi jiray Macruur hase ahaatee xukunkiisii waxa uu socday 8 bilood oo kaliya kadibna waxa weerar ku soo qaaday Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu isaga oo markaasi hogaaminayay askartii muslimiinta محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم boqortooyadii Shaam sanadkii ay qabaa'ilka carabta hijradooda ay badneed jilibka reer Khudaaca waxa ay degeen hareeraha dhulka Shaam waxayna ahaayeen reer Bani Sulayh bin Hulwan oo ay kamid ahaayeen Daj'am bin Sulayh oo loo yaqiinay Dajaacimta ruumaanka ay gacan saar la lahaayeen si markaasi looga horgeeyo farisiyiinta boqor ay caleema saarteen boqorkiina sanooyin ayuu ciqaab ku hayay dadkan boqoradoodana waxa ugu caansanaa Siyaad bin Habuula waxaana lagu qiyaasaa sanadkii markaasi ay jireen qarnigii labaad horaantiisa ilaa dhamaadkiisa xukunkooda waxa uu dhamaaday kadib markii ay Al-Ghassan ay soo weerareen kana guuleysteen kadib Al-Ghassan waxay boqor u caleema saarteen nin reer Al-Ghassan iyaga oo mas'uul ka ahaa carabta Shaam saldhigoodana waxa uu ahaa magaalada Basra waxaana loo yaqiinay xukunkii qasaasinada waxa ay halkaasi xukumayeen iyaga oo markaasi lagu sifeyn jiray calooshood u shaqeystayaal Ruum ilaa uu ka dhacay dagaalkii Yarmouk sanadkii 13aad ee taariikhda hijriga kadibna ciidankii muslimiinta ayaa meesha ka saaray boqorkoodii ugu dambeeyay Xabalata bin Ayham arintan ayaa waxa ay dhacday xilligii uu xukunka hayay saxaabiga Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu النبي صلوا عليه barnaamijka siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa alaaba halkan idinkala socodsiiya walaalkiin Maxamed Cali Juxa intaasi aynu maanta ku soo gabagabaynaynaa qaybtii ugu horeysay ee siirada rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo aan ku soo qaadanay dhulka carabta iyo waliba dadkiisa qoomamkii carabta xukuumadihii iyo waliba maamuladii carabta boqorkii Yemen intii u dhaxaysay 1300 ilaa 320 taariikhda miilaadiga ka hor intii u dhaxaysay sanadkii 620 ilaa 115 taariikhda miilaadiga ka hor intii u dhaxaysay 115 taariikhda miilaadiga ka hor ilaa 300 oo sano taariikhda miilaadiga kadib muddadii u dhaxaysay 300 oo sano taariikhda miilaadiga kadib ilaa uu islaamka Yemen ka soo galay boqorkii Xiira iyo boqortooyadii Shaam intaan barnaamijka la mid ah dib dambe aan ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi tacaala wa barakaatuhu